mar qura ayaa lagu soo baraarugay maanta maqnaashaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo 25 jir ahaa aadna looga yaqaanay degmada Waabari ee gobolka Banaadir. wiilkan ayaa ahaa mid ku shaqaysta tolmada dharka ama harqaanka, balse markii la jebiyay goobtii uu Cabdiraxmaan ku ganacsan jiray waxaa la arkay isaga oo daldalan. lama oga inuu isagu isdilay ama la dilay, balse dadka degmada Waabari qaarkood ayaa sheegay in Cabdiraxmaan isagu uu isdilay isuna dilay arrimo jacayl oo isaga u gaar ahaa. saldhigga booliiska degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa bilaabay baarista waxa uu salka ku hayay dhimashada Cabdiraxmaan. dhacdadan ayaana noqotay mid dadku siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen. laakiin aad iyo aad uga naxay in yaraan xaafadda deganaa intaasaan ugu filan aqoontiisa. waa arrin mucjiso xag rabbaani ka timid, wax kaloo ka sheegi kara ma laha. laakiin ilaahay isaga jannada firdaws allah ugu bishaaray. insha allah ilaahayna waxaa ka tuuganaya tanoo kale xaafadayna ku soo noqon mar kale. laakiin waa arrin qiiro leh, aad iyo aad uga naxay, aad iyo aad uga naxay. maxaba baa naga ma hadda maqlaynaabo oo ogin, laakiin aad iyo aad uga naxay. والله سام كسب حتى ما خان أنا ما أعرف وياه إيدي أنا قطش دبي ما أعرف، لكن أنا حافظ الذكر بقول بكسب بحب، لكن هذا أول نحن الحواس كونك سنة وهاي أو إسكح معنا إسكش غيرنا أو حرقان إسكح هاي وقتي سنة مش كل ماضي هي جيريدي سوكل وإحنا قدنا سيدا كل عدد جيريدي العز كدير على الحاري وغارت كساليري ماشي وصوي حتى الله واقف مركا gormeel oo kale isdilay gorme meedkiisa la helay saakil hadda meesha uu xirnaa Allah 7 saac mana meesha lagu jibiyo Allah xaas dib lagu gaana lama waa karaad laakiin xaas inuu leeyahay iyo carruur uu leeyahay wuxuu qoraa leeyri waraaqado qorayri meesha uu tagaa Allah waxba muxuu kula inuu xaas iyo carruur ka tagayo yani inuu isdilayo kale uu is ogaa wixii dardaaran sii qoraa waa gartay muddo intee lagu harqaankan ku jiro kala Cabdiraxmaan inta aad taqaano kale hal 3 sano amal waa qaanaanay. محمد عيسى كونا، Universal TV، مقدشو.